asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal kanina waa mid ka mid ah oo daba socda maqaaladii taxanaha ahaa ee aan ka soo qaadan jirnay maqaaladii uu hore u baahiyey fahad yaasiin xaaji daahir taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliya ee nisa wakhtigii uu ahaa saxafi ka howlgala warbaahinta mowduucan ama maqaalkan aan maanta idinka hayo maqaaladii fahad yaasiin ee la magac baxay fahad iyo isniinta waxa uu ciwaan uga dhigay maqaalkan aan ooye albaabka ii soo xidha fahad yaasiin waxa uu maqaalkan baahiyey bishii Noofembar sanadkii 2005 gaar ahaan 21 bishii Noofembar sanadkii 2005 waxaanu ku bilaabay maqaalkan oo ula baxay aan ooye albaabka ii soo xidha sida tan haddaad damacdo buu yidhi oohin in aad qorto ma jiraan xuruuf higaad sax ah ku dhisan oo aad ku cabirto oohintaasi yaase ku og haddaad inta aad albaabka soo xidhato keligaa isku oydo horaa loo yidhi aftaag habeen ninkeed bay dhibtaa haddaad tahay buu yidhi waddani dalkiisa jecel ha akhrinin maqaalkan haddii aad tahay dalkiisa gabe waa in aad wax ku qaadataa qoraalkan aduu kugu socdaaye bal isha mari haddiise aad tahay laga sabir dalka aan dan ka lahayn aadna ha akhriin kan hore waxaan ugu diiday inuu muraaradillaaca ayaan ka baqayaa niyad jabkaan ka leexinayaa inuu oohin darteed albaabka u soo xidhaan kala cararayaa kan dhexese toostoosin uunbuu rabaa hanuunkuna wuu u dhow yahay waase suurowdaa inuu talada yeelo waanadana wax ku qaato kan saddexaadse waa khayr beele waa dagaal ooge iyo dantiis oogihii aan hore uga soo hadlay isaguna hadduu akhriyo rajo lagama qabo inuu danguud u heelado dalka loo wada dhalay waase la kala duwan yahay odaygii 60kii soo gaadhay wuxuu hankiisu ahaa in ay Soomaaliya xorriyad hesho calankii shanta xidig lahaana uu ka babado shanta Soomaaliyeed oo dhan waxay ku farxeen markii ay heleen laba ka mid ah shantii aan xorta ahayn bal aan siduu yahay eego ka nasiibka nasaar waxay markaas hanteen 40% intuu hankoodii ahaa kuwoodii aan burburka soo gaadhin waxay geeriyoodeen iyagoo u ciil qabay in ay hoos harsadaan calan ka wada dhexeeya shantii xidigood rabbi ha u naxariisto dhammaantood kuwoodii burburka soo gaadhay ee hoogii iyo bi'i arkay wuxuu hadalkoodii ku soo ururay tolbeeli waayeeyey intaysan fadeexadan dhicin maxay taydii iigu ima weyday kuwa hadda Soomaaliya isku haya kolkay doodayaan ma ay fahmaan dantooda waxa isaga ka maqan iyo waxay ka hadlayaan waa kaaf iyo kala dheeri ciil buu u go'aa wuxuu duqoobay isaga oo muruqii uu jilcay tabartiina ay ka tagtay murugana ay u dheer tahay kuwoodii kala tagii dalka kadib geeriyooday waxay godgaleen iyagoo muraaradallacsan oo isleh rabbow intaadan Soomaali rogin naga hormari raggii aan gumaysiga arag dowladnimada qiimaheedii ku dhex noolaa kadibna uu dalkii ka burburay iyagu hankoodii wuxuu ku soo ururay allowyaa labadii la isla helay mar uun isku soo cesha oo sidoodii hore ka dhiga kuwaase qoladan garab socdoo taasna iyaga ku khilaafsan oo leh annaga xidigtii shangeesoodka ahayd taayadii goosannay afarta kalena dan iyo heello kama lihin ammaan hana siiyeen annaguna ammaan baanu siinaynaa wiilashii dowlad la'aanta hana qaaday hankoodu meeluu u socdo maba ay oga waayo han aan ahaynba ma laha dadku maydanahooda kala raacdaan ayayba joogtaa maxaa muranka keenaya ayay la soo taagan yihiin maxaa dagaalka sabab u ah weeyey su-aashoodu waa jiil nolol ka maqanba aan fahmin wax loo socdana aan garanin shantii Soomaali inayba jirtay loomaba dhigin dowlad inay muhiim tahay ma garanayaan sidan hadda si dhaanto ma aqaan ayuu hadalkoodu yahay alla kala duwana fahad yaasiin xaaji daahir oo maqaalkiisan la yaab kale sii wataa waxa uu yidhi intii uu socday shirkii Kenya ayaan hotel 680 kula kulmay daahir xaaji cismaan oo loo yaqaano dhagaweyne oo ka mid ahaa dhalinyartii aasaastay SYL anoo ku faraxsan inaan daahir nolol ku arko ayaan kolkii la iskaayo baray ku idhi hal su'aal baan ku weydiin waxayna tahay adeer Soomaalidii waagaagii joogtay iyo kuwan hadda ee aad 680 ku aragto farqi intee la eg baa u dhaxeeya wuxuu ku jawaabay inta sano ee noo dhaxaysa waa u dhaxaysa weligay ma aragtay jawaab sidaas u kooban misana sidaas u mug weyn hadalkaas waxaan si fiican u fahmay muddo waqtigaas laga joogo sanad oo aan tagay Soomaaliya wiil gaadhi aan saarnaa dirawal ka ahaa ayaan weydiiyey in uu dowladda taageersan yahay iyo in kale wuxuu igu jawaabay walaal da'daydu waa 19 jir kolkii ay dalka dowladdii ka duntay siday dadku ii sheegeen waxaan ahaa 5 jir intaan joogay dalkana maanta ayuu ugu degan yahay marka saaxiib qofkii dowlad soo gaadhay su'aasha u bandhig oo anigu waxay tarto iyo waxay goyso garan maayo dowladii taasi saw marag uma aha
jiilkii uu daahir dhegaweyne la noolaa iyo kan hadda jooga garaadkoodu inuu isu jiro inta sano ee u dhaxaysa. farqiga maskaxeed iyo kan wadaniyadeedba hadduu intaas yahay, waxaa sahal ah in aan aragno ra'iisul wasaare u ololeynaya in uu labadii wada jirtay kala jaro oo uu koonfur kaliya haddayba u hagaagto uu ka taliyo. kuwa dibadaha jira, weliba kuwooda ku qaangaadhay dhulalkaas, waxay lumiyeen dhalashadoodii wadaniyadeed. waxaan lagu arki doonin inuu yahay Soomaali, dabcan marka laga reebo qoysas yar oo faraku-tiris ah. baasaboorka uu qaatay ayay la tahay in uu maskax ahaan dalkaas yahay. waxaa shaki iiga jira 10 sano kadib sida ay u soo shaqayn doonaan xawaaladlayaasha Soomaalidu, waayo waxaa la gaari doonaa waqti aan dheerayn oo ay Soomaalida dibadaha ku nool, weliba kuwooda iyagoo yaryar la geeyey, aanan la fahansiin karin sida xaq ahaan loogu leeyahay in uu qaraabo Soomaaliya ka jirta uu biil joogto ah u soo xawilo. dunidu marka ay Soomaali soo qaado, waxay tusaale u yihiin Soomaalidu dawlad la'aan, dal la'aan, iyo hadba ummadii burburi rabta in la dhaho Soomaaliya oo kale ha noqonina. alle ceeb weyna qof ajnabi ah haddaad iska hortimaadaan uuna jinsiyadaada ku su'aalo ood ku tidhaahdo Soomaali baan ahay, wuxuu ku odhan ma waddanka aan dawlad lahayn baa tahay. ninkii sii joogow maxaa aragti ku laaban. 14 sano kadib haddii laga tanaasulay dhulalkii Soomaali ka maqnaa, sidoo kale la kala gooyo labadii jamhuuriyadda wada ahayd oo ah arrin soo socota, sow jiilka annaga nagu xigaa ma waayi doono Soomaali oo dad ah mooye dal ahaan u jirta. sow lama arki karo Soomaali oo khariidada dunida ka masaxan. kuwa ku sii xigaana hadday taasi dhacdo, waxay lumin doonaan in magaca Soomaaligu uu dad ahaanna u sii noolaado, ayna noqoto wax taariikhda lagu sheego oo keliya. allow ceeb intan baa noogu filan. intaa markii uu maqaalkiisan aan ooye albaabka iyo xidha kusoo gebagabeeyey Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, waxa uu maqaalkii xigay oo uu kaga hadlayay faallooyinka uu dadka la wadaagay kusoo qaatay ciwaan hoosaad uu ku yidhi sidan: aan kula ooyey albaabka iga fur. waxay ahayd fariin ka timid mid ka mid ah dadkii akhristay maqaaladii Fahad Yaasiin, gaar ahaan maqaalkan iminkaan halkan ku akhriyeynay ee ahaa aan ooyey albaabka ii soo xidh, oo ninkaasi isaguna ciwaan kale uga soo dhigay aan kula ooyey Fahdow albaabka iga fur. waxaanu Fahad Yaasiin falcelinta akhristahaasi isaga oo soo qaatay ku yidhi sidan: aan ooyey albaabka iga fur. sidaas waxaa email iigu soo diray saaxiib ku nool qurbaha oo uu dhalay mudane Sheekh Mukhtaar, waa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya. fariintiisii wuxuu u dhigay sida tan: waxa aan ka mid ahay jiilka qurbaha jooga ee mar walba ku tallama inay dalkii ku soo laabtaan. markaanse maqaalkaagii akhriyey oohin baan la fuuray. aabbahay Sheekh Mukhtaar oo hadda 90kii kor u dhaafay oo caafimaad qaba, kolka agtiisa lagu daaro raadiyaha wuxuu la qayliyaa wariga damiya, isaga oo nacay sida qiimo darrida ah ee ay u hadlaan iyo halista uu waddankii ku sii hoobanayo. wuxuu hadalkiisii ku soo gooyey ninkaasi aan kula ooyey Fahdow albaabka iga fur. bal u fiirso, dibna ugu noqo maqaalkii ugu dambeeyey aan haddeer idiin soo akhriyey. waxaad qiraysaa in jiilkii Sheekh Mukhtaar uu gaadhay heer uu kohdo dhegaysiga warbaahinta Soomaalida, isaga oo nacay darxumadu halka ay gaadhay. qoraalle aad u badan oo aan ku dhaleecaynayo dowladda Nairobi lagu alifay ayaan qoray. dadkana waxaan tusay in hoggaankeedu uusan ahayn kii saxda ahaa. taasi waxay dhalisay dad badan oo dhibsada fariimaha aan gudbinno. qaarkoodna waayadan dambe ayay fahmeen qayb ka mid ah khatarihii aan ka digi jirnay. hadda haddii baddii la kireeyey, dhulkiina intii maqnayd la fasaxay, intii wada socotayna haddii la kala jaro, aysan dowladdu dib u arag, akhristuhu garma ii siinayaa wixii dhaleecayn ahayd ee aan qori jiray, ayuu ku soo gebagabeeyey maqaalkiisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. waa maqaalkii ugu magac daray aan ooyey albaabka ii xidh, iyo jawaabtii akhristaha uga timid ee ahayd aan kula ooyey Fahdow albaabka iga fur. saaxiibayaal, inta aynu maqaalkan mid lamid a maqaalada Fahad Yaasiin soo qaadan doonno, waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.